hodan cabdi cali waxaad ka mid tahay hogaanka abaabulka ee xisbiga wadani waxa dhacday maalintii dhaweyd ee la dooranayay gudoonka golaha wakiilada Soomaaliland in adigoo wariye waraysi ka qaadayo gabadh goobta ku dhaweyd ay dhirbaaxa kuugu dhufatay arintaasi sida ku dhacday waxay u dhacday waa tii shir gudoonka lagu dhawaaqay waa tii lagu kala badiyay waa kii xusbiga iyagu badiyay hadaan nahay isbahaysigeeyay adwanagi badinay waxa jirta in farxadii aan calankii wadani la soo baxay ilaa iskooyskii inta ka soo baxay wadada madaxtooyada soo maray ayaan calankayga wadani iyo guul ku dhawaaqay gabadhana halkaas ka soo socotay gabadh kale gabadh dad aad isu yaqaanana waanu hayn laba xusbi aanu kala ahaanee dad inta misasalaana isbaridiyaanu hayn oo markay doonto igu dhisho kulmiye wadani ayda anaga kulmiye caay jiray aan colaadna ku kala qaadan jiray nabad baan soo jirnay anoo sii jeeda waa tii dhirbaaxada igu dhufatay waxaan soo u sheegayaa wixii i daawaday inaan naagta dhirbaaxday aanan lahayn markii aan ku dhaqaaqay gabadh naagtii la socotay ayaan anigu ku lahayd maxay ku dhirbaaxday markay ilaahay iska joog iyadana dan naagta dhirbaaxda ma oran karo inta maxaad ku dhirbaaxda markii waa tii carartay inta dhirbaaxada ka hor in waraysigu ayna wariyo waraysiga ka qaadin ma waxa jirtay aad iskala soo baxdeen gudaha ee lagu soo kala badiyay gudaha iyada ma yaad isku soo aragteen ma isku soo leyseen maya ismaan soo leyn ismaan leyn wax dagaal oo naga dhaxeeyna ma jirin guud daradii kulmiye qabsaday faraawul bay siday ina ku shubtay doonaysa nimankii guud daradii kulmiye qabsatay abadana saa u haysan doontaa unbay gabadhu igu dhirbaaxday aqoonta leeg bay idin dhaxaysay marka gabadha aad isku xaafadna ma nihin hadiya goorna haddaanu sarabno dad isa salaama ayaanu hayn dee anoo soo jeedana markay calanka walqinayay wadaniya aan guusha ayaa way ka soo baxda juuqiimay oran marka sii jeedunbay gaado ila eegatay ما دي بسكوان وانا وانا دايداي bulshadu waxay laakiin lahaayeen qof dulqaad badan weeyaan marka ay moodayeen imika sanadigu aad u dhigtay markii hore ee lahayd eed maxaad igu dhirbaaxday waxa la waa qof aad u dulqaad badan imika waxaad sheegtay laakiinse inaanad iyada u jeedin bulshadii markii hore aamisnaayeen qof dulqaad badan tood ku lahayd eed maxaad igu dhirbaaxday aad ku amaanay bal ka waran maxay oran doonaan imika anigu iyada ma lahay manaag dhirbaaxay igu dhufatay daas aad suuragalba ma noqon kartaa eedo markii way carartay ana waa kii wariyay qabtay markii dambana waan ka daba tagay waan gaaray askar baan kala qabatay oo na kala gaxaysay oo wana la kala gaxeeyay imikii haddana guudarada kulmiye guudaradii ay guudaraysteen iyo guushayadii wax walbana waxaan ku ilaabayaaba bacdanaaba aan guulaystay oo 22 doorasho degmo ayaa la qabtay 22 kii xabada gabiilaba iyo 22 kii xusbiga wadani ba hogaaminaya 6 gobol ee Soomaaliland 5 baan hogaaminaynaa shir gudoonkiina waan hogaaminaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadale waxaasna waxay igu dhaceen guudaradoodii ana waan guulaystay haddaan imika iska dhaafana dhib ma laha waayo waama guulaystayba dabe waxa la yidhi Soomaalidu waxa ku maamaadaa dabeeraan ku joogo maxay dhuusadiisu iga qaadi dalkii baa mar haystaa meel walba xukumaaye maxaa wada kulmiye goga sii tiigaali siyaasad waxa ku koobnayd ragga iyo dagaalka iyo gacanka hadalku ilaa dumarkiiba imika soo gaadhay way soo gaadhay dumarka iyagaaba ugu colaad xun anigu waligay hata anigu khaas ahaantayda marka hore waligay u dubanaha kabacdigii xusbigayga hooda la baabaayna waxaan galay xusbiga wadani waxaan galayna markuu ururka ahaa ilaa xilligaana waan la joogaa inta cidigu nacab iyo cidigu jecel inta noolahay waan ag joogaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi madaxweynahayga xusbigaygana aad baan u taageersanahay waana la joogayaa wixii igu dhacaana dulqaad baan uga leeyahay bulshada maxaad leedahay markaa bulshada Soomaaliland waxaan leeyahay aduun bay uga falceliyeen arintaasi Soomaaliland waxaan leeyahay intii daawatay ee magacayga iyo muuqaygaba garanaysa dawata intaaba waan soo cagahan ku dagaalamay macaarid baan ahaa
dee anoo soo jeedanaa dhirbaaxaygumay dhicin anoo sii jeedaa lay gaaday markii aan ka fal celinayana askartaana kala gaadhay eedana iyada maan lahayne naagtii la socotay ayaan lahaa eedda maxay igu dhirbaaxday taasaan